iyadoo inta badan ay bulshada Soomaalidu aan ku baraarugsaneyn daryeelka xayawaanka dabjoogta oo inta badan xuquuqdooda bulshada ka helin ayaa ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland oo ka duuliyay arrintaasi isla markaana shacabka u bidhaaminaya sidii xayawaankaasi loo daryeeli lahaa waxay maanta magaalada Hargeysa ku soo gabagabeeyeen hawlgal ay habeenkii xalay ka bilaabeen isla markaana ka duwan hawlgaladii hore ee ku sameeyay bixin jireen nafaha dadka aadamaha iyagoona hawlgalkaasi ku soo sameeyay bixiyay badbaadada mid ka mid ah xayawaanka loo yaqaan bisad oo iyadu ku dhacday masquul ku taala mid ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa afayeen oo hadlay ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in dhacdadan ay ku cusub tahay isla markaana ay doonayaan sida ay bulshadu il naxariis leh uga eegi lahayd xayawaankaasi waxaan hawlgal soo gabagabeynay imika noo soo dhamaaday samata bixin xayawaan Ilaahay abuuray bisad suuli ku dhacday bisadaas alxamdulillah rabbil caalamiin afrika saacadood ka bacdi waxaan ku guuleysay ka soo saarno meesha sababtoo meesha nagu adkaatay sagbad baan ilaa xal qodaynay ilaa maanta qodaynay waxaan soo dhanoo qodaynay Ilaahay wuxuu isku naxariista kiina jecel naxariista kiina kalena naxariista si aan Ilaahay ugu naxariisto ka alxamdulillah rabbil caalamiin ciidanka dabdamisku hariyay waxaan heegalnay inaan samata bixino noolaha ama ha noqdo bilaadan ama xayawaan ha noqdo noolo kasta gurmadku u baahan yahay in la gargaarano u baahan yahay ama bisad ha noqoto ama xayawaan ka sii naf yar ha noqotay nafta bilaadanku baa ku jirtay Ilaahay baana wada abuurtay Ilaahay baana inagu eegaya marka aanu kama adkaysan kareyno dhiilo nagu soo dhacaysa oo samata bixin haddii suul noqoto iyo haddii badweyn noqoto iyo haddii doox noqoto iyo haddii wado noqoto iyo haddii meel walba noqoto anagu waxaan ku shaqeynaa dhiilada nagu soo dhacday ee dadweynaha gargaarka u baahan waana u taagnay wax ahaan iyo ciidanka dadweynaha aan mar walba badbaadina ama samata bixino alxamdulillah rabbil caalamiin shalay shantii baan ugu soo wargeliyay ilaa xalay warqadina waan jibinay Ilaahay nagu soo guuleeyay waana soo dhameynay imakaan ka soo baxay dhacdadan cajiibka ay maanta ay sameeyeen ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland ay ku soo badbaadiyeen bisada ayaa iyadu waxay horseed u noqonaysaa isla markaana iftiiminaysaa in bulshadu ay ku baraarugto sidii loo daryeeli lahaa xayawaanka kala duwan ee inta badan dadka aadamaha la nool Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida